بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan jeclaystay inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed kelimo kooban oo waana ah taas oo ku saabsan xaalka wadankeenu uu marayo dhinac markii laga fiiriyo Soomaalida burburkii dhacay iyo wixii la soo maray waxyaabo laga faa'iideysay ayaa jira taas oo ah meel kasta ummadeenu ay joogto inay isla wada dareensan yihiin faa'iidada ay leedahay deganaanshaha iyo nabadda iyo horumarka wadanka in laga wada shaqeeyo taas oo waajib ku ah qof kasta maxaa yeelay islaamkeena ayaa wuxuu ina farayaa qof walba wixii xaqiisa jira inuu ka soo baxo inagoo ka duulayna xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi qof walba waa loo diray hawl baa loo diray oo waxa laga dhigay qowsaar waana la weydiinayaa waxa la raaciyay marka mar hadii la yiri kullukum mas'uuliyadda dadkoo dhan ay saaran tahay laakiin qofba meel ayay kala gudboon tahay ama ay kala siman tahay saas daraadeed bulshada Soomaaliyeed qof walba meesha ay kala siman tahay kii waalid ah iyo kii waalid loo yahay kii culimo ah iyo kii caamo ah kii ganacsada ah kii siyaasi ah qof walba yaani meesha uu markaas ka haayo ayaa waxa laga rabaa in uu ka ilaaliyo sida danta ay ugu jirto ummadda Soomaaliyeedna wixii asaga la siman oo Ilaahay uu ku og yahay oo daacadnimo ah inuu u qabto qofkii khiyaano iyo waxyaabo asaga ay u qarsan yihiin إلهي وحو له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلهي وحو أوجيه إيش وخيانته يوحي لابت يجودها لو هايستو وحكمل وحيابها وناكسن لقن كصوبنا بن آدم كانوا يسكو آمنوا دين الإسلام كانوا يحوجين يسو دتكو هدي أي وحكوه الشيان وحاس أي كوه الشيان إن سيدي لوجه الشيء لو قبته أو عن لس خيان ساس إلهي وحو له وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا يعني بلنك إلهي أوفيا بلنك إلهي يا وحلقوس يفسري مركا إذنكو عاد بلن عاد جشان وأوفوا بعهد الله بلنك إلهي مركا بلنك إلهي واكه بلنك إلهي وحويهي إذا عاهدتم إذنكو وحي عاد كهشيسان ساس الدين تين وحي قبل تأرين لي هذا المسلمون على شروطهم مسلمين توحي أي كهشيان والصلح جائز بين المسلمين بلنت الوهشي إلى علمت هذا وواجب ديني وأخلاق قفكي بريانا إلهي يا كل حساب تمايا وحنا نقولنا قف منافقة ووحي دتك كل شيء عن كسب بحين ساس درادت وحلو بهن يهي مرحلة يومنا ما أنت أي مرة يسوع هدي أنا لا حاجة معمولك يا معمول هذا وحيابها كده حياة وحي هشيسة أو أي ضد وذا جلان هدون هشيس كاسي وسن حلالين إن وح إلهي وحران تنمي إن هشيس كاسي لو هشيء لو ذا فلي أي لو بهن ومضى إنه فائدين كإجارتي وحكم ذا ومضى وحاجة إن لمد oo caalamka carabta oo kala kamid ah oo dadku ayna garanaynin hoggaanka marka ayaga u jooga xilli mas'uuliyadiisu ay ku agtahay ama ay dhamaanayso oo qofkan maalinku dhasho ayaa wuxuu la soo galayaaba inuu madax u yahay waaba hada caruur caawa dhashay soo u socdo intuu ku weynaado yaa laga yaabaa inuu madax saas ku noqdo markuu madax noqdana madaxnimadaas ilaa uu ka dhinto inuu iska ahaado laakiin naga Soomaali hadaan nahay taas ilama haysato waxaan ognahay mas'uuliyad hadii waqti loo qabto waqti inuu dhamaanayo hadii waqti uu dhamaadana hadana in la cusboonaysiin iyo in la bedelo intaba inay dadku ay leeyihiin dhanka kale xurriyadda dadku ay haystaan ay ku cabirayaan aaraadooda ayaa wax badan aan kaga duwanahay umada kale dad waxa jira Facebook waxay ku qoran maanta lagu xisaabinayo oo Ilaahay maxaa saa u tiro xabsiyo ku galay laakiin ummadena Soomaaliyeed waa ummadaas furan meel kastoo ay kala joogan yaani waxa ay rabaan oo ay xurriyadda ah ayay sheegayaan qof lagu xisaabinayo maxaa saa ugu hadashay la yirina ma jirto taasi marka waa wax aad u weyn oo ummadeena aan yaani faa'iido inay ka faa'iideysay tahay dhanka kalena looma baahna marka xurriyad adigoo sheeganaya inaad qof kale dareenkiisa daawacdo ama aad wax gaarsiiso sababtu maxay tahay waxa la yiraahdaa xurriyadaadu waxay ku egtahay qofka kale xurriyadiisu meesha ay ka bilaabanayso saas daraadeed baaqa guud ee ummadda aan u jeedinayo wuxuu yahay Soomaali dhibkii aan soo marnay iyo burburkii aan soo marnay muddadii dheereed ee dagaalka sokeeye uu socday qof walba meeshiisa ayuu ku gaaray ummadeenu waxay maanta u baahan tahay in dhibaatada si looga baxo horay loo socdo aan dib loo noqonin oo dadka ay wax ka dhaxeeyaan ama wax ku kala duwan dadka akhyaarta ah ee ahlul xal wal aqd yiraahdo inay ku soo baxaan dadku haday iskhilaafaan oo isku dhacaan waa inay dad kale oo ku soo baxa oo yiraahdo sidaas yeela waa in loo helo oo qofkii markaas sidii la isku ogaa si aan ahayn u socdana dadkoo dhan oo wada jira oo dadka asaga ugu dhow ay ku bilaabayeen ay warniyo sidaan ma anfacaysa joog haddii asaga yaani uu gar leeyahay garta la siinaayo
inagoo fulinayna xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ahaa unsur akhaaka zaaliman aw madluuman qofka walaalka ah hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay garab istaag saas daraadeed ummaddeena waxaa baaq aan ugu dirayna oo ah qof kasta meesha uu joogo inuu mas-uuliyadda ka qaato ilahay waxaan uga mahadinayna subxaanahu watacaala inuu inoo sahlay ummaddeenu inay isfahmayso isku luqad ay tahay waxyaabaha dadka u dhexeeyana inay hadda ku soo urureen ama ku soo koobmeen hab siyaasadeedka iyo habka xukunka iyo si la isugu bedelayo ee sidii qabaa'ilka Soomaaliyeed ee qabiil iyo aana qabiil isu dili jireen inay meesha ay ka baxday oo maanta dadka ismucaaradaya ama iska soo horjeeda inay isku beel noqdaan ayaa dhici karta oo labada dhinac ay ku kala jiraan taas waxay inaga fududaynaysaa isku abaabulkii dadka beelal isugu abaabuli jiray luqadii dadku ay u dhagan nuglaayeen oo reehibel oo ka cala dhihi jiray maanta reehibel lagu kiciyo meesha ma taalo ee waa siyaasad kursigan doorasho ka dhacaysa iyo kana raba iyo kana yani u diidan ama saas habka yani loo sameynayana waa habkaas furan ee dadku ay wada raadsanayaan wixii farsamo ah ee marka qaarkood ay dhici karto in uu kala duwanaadana waa wax hore u dhici jiray haddana way dhacaysaa laakiin waxaa looga gudbaa ugu dambaysta natiijo fiican intii la gaaro in hore loo socdo aad u mahadsantihiin ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'aala inuu tawfiiqna waafajiyo ummadana waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo caafimaad iyo in walaaltinimada Soomaaliyeed la ilaaliyo waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلاة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيضا لو جه أهمية أولية هي برنامجك bulshada ay ku xiriirto ee social media iyo arrimaha ku saabsan oo xilligan casriga ah noqday aalad runtii aad iyo aad saameyn u leh ayaa waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogaan aan la wadaagaynaa inaan u furnay page ku furan magacayga oo leeyahay page-ka Sheekh Cabdilxay oo YouTube-ka ah kaas oo la soo gelin doono barnaamijyada aan ugu talagalay in bulshada lagu wacyigeliyo oo ay ka mid tahay khudbada Jumcada ee isbuuciiba mar baxda ee magaalada Muqdisho Masaajidka Cumar bin Khadaab ka baxda iyo waxyaabaha kale ee isleenahay baahi ayaa markaas ummaddu ay u qabtaa inaan yani aan u soo bandhigno waxa kale oo jiri doona su'aalo oo runtii dadku ay aad yani isu weydiiyaan oo ana isu weydiiyaan inaan fursad u siino Facebook inaan isbuuciiba mar aan ku soo bandhigno mowduucyo markaas aan isleenahay muhiim ay bulshada u yihiin ayagoo wixii su'aalo ay qabaan ay halkaas ku soo qori doonaan kadibna aan jawaabta usoo dhigi doono page-ka YouTube-ka aan ku leeyahay page-ka Sheekh Cabdilxay marka dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida aad uga qayb qaadataan wacyigelinta bulshada kolba barnaamijka qiimo leh meelahaas lagu soo bandhigo aad marka aad uga sii qayb qaadataan iyo dareenka runtii wacyiga sareeya aad yani kaga falcelisaan hadba markii duruufta iyo mowduucyada halkaas ka jira ee la maraayo marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada page-kaas insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa duruus laga faa'iideysto iyo macluumaad muhiim u ah nolosha dadka isla markaasna diinteena islaamka iyo faafinteedana qayb weyn ka qaadan doona inaad halkaas ka heli doontaan marka saa ula socda waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh